tartankan oo sanadla ah ayaa loo qabtaa 17 degmo ee gobolka Banaadir maanta ayuu si rasmi ah uga furmay garoonka Engineer Yarisow ee ku yaala degmada Cabdulcasiis waa tartan uu soo qaban qaabiyo maamulka gobolka Banaadir munaasabada furitaanka waxaa goobjoog ahaa wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiin kale iyo dadweyne u soo daawasho tagay ciyaarta furitaanka tartanka ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan waxana uu yiri farxaday noo tahay reereyn in tartankii sanadlaha ahay oo degmooyinka gobolka Banaadir aan galabta daahfurayno waa farxad weyn si nabada maamulka gobolka Banaadir oo taagay ay horumarinta sportiska iyo garab istaaga waxaan rajaynayaa in sanad ka dambeeyo uu ka sii hormari doono wax badan ay jiri doonto oo maskax iyo maal ah waxaa aad iyo aad iduna farxad u ah inay nagala soo qayb galeen ama soo dhaweynayno degmo kamid ah degmooyinka gobolka maamul goboleedyada degmada Balcad oo halkan iyaduna qayb ka ah kadib markay aragtay in sidan quruxda badan oo sanadka hore ciyaarahan loo qayb qaatay sanadka mar waxaan rajaynayaa degmooyin badan oo maamul goboleedyada kaga mid ah inay ku soo dhaweyn doono soo dhawaada leeyahay dhammaan aad iyo aad u mahadsantiin wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo tartanka furay ayaa isna yiri waxaad weynay tahay maanta inaan ka soo qabgalo daahfurkan tartanka degmooyinka alxamdulillah waxaan fursad ku helay tartanka ugu horeeyay degmooyinka inaan ka qayb aanu ciyaartooyinka garoonkan ku dheelay maanta waxaan meeshan inaan daahfur aanu mas'uula marka ciyaaraha degmooyinka xiisa gooni leedahay maanta aniga meel qeyr ay noqdeen garoonka waa sidii garoonkan aad arkaysaan kataanga aad arkaysaan iyo garoomada kale waxba iskama bedelin wili marka waqtigan aan ugu dheeraa mar hadalka inaan ku dheeraado sportiga ha loo hiiliyo guuleysta kulli labada kooxood ee lagu kala magacaabo Cabdicasiis iyo Dharkeenley ayaa lagu furay ciyaaraha Dharkeenley waa kooxda koobka difaacanaysa Cabdicasiisna waa kooxda garoonkeeda markaasi lagu ciyaarayo maxaa yeelay garoonka Engineer Yarisow ayaa ku yaala degmada Cabdulcasiis waxay Cabdicasiis uga dhigan tahay in markaasi ay furo u tahay sportska Soomaaliya maxaa yeelay degmadaas waxay nasiib u yeelatay garoomo dhowr ah oo ka mid yahay garoonka Wish garoonka Engineer Yarisow iyo sidoo kale xeebta dheer ee Lido oo ay maalin walba u ciyaar tagaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool caasimada dalka waa la eegi doonaa sida sanadkan uu xiisa gaar u yeeshay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir oo qayb ka ah tartamada ugu daawashada badan ee dalka محمد شوريان نور يونيفرسال تي في مقدشو